الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا ليال خطبتنا وحي لا سقطا خطبتي كهر رئيسي وحن كقصة هذا الني حوت النبي عليه الصلاة والسلام ما أنتنا وحي كسب سنت هاي المامة dadku marka ay jannada dadkii wanaagsanaa ee adduunyada marka ay joogeen soo cibaadaystay wixii la farayna soo qaatay bal abaalkoodu meesha uu ku sii dambayn doono walaalayaal ilaahay subxaanahu wa ta'ala addoomihiisa wanaagsan wuxuu ballan qaaday inuu janno gelin doono ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu yiri yawma nahshuru almuttaqiina ila arrahmani wafda ilaahay markuu ka hadlayay addoomihiisii wanaagsanaa wuxuu leeyahay waa la soo xaadirin doonaa waa la soo kaxayn doonaa dadkii ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka biqi jiray adduunyada marka ay joogeen ilaahay baana loo keenayaa iyagu wafdiyaal ah iyagu wafdi ah oo la hogaaminayo oo la soo dhaweynayo wafdi qiimo badan markuu ku imanayo waa taqaanaas inta laga hortago baabuurka ka qurux badan yahay hadii maanta la yiraahdo waxa weeyaan madax iyo wasiirre iyo waxba imanaya baabuurta ugu quruxda badan baa loogu horeysiinayaa magaalada intaasoo kiiloomitir ka fog baa laga hortagayaa sacab baa loo garaacayaa calamo qoyan baa lagu soo dhaweynayaa bal ka waran duul ilaahay subxaanahu wa ta'ala la horgeynayo iyagu wafdi laga soo qaaday inay wafdi yihiin walaalayaal qofku qiimaha wuxuu halkan kala tagunba akhri la tagaya halkan aynu joognaa waa meel laga shaqaysto weeyaan waa daarul amal waa meeshii laga sii xoogsanayay laga sii tabcanayay weeyaan halkan waxaad ku tahay umad xaqana ku ahaan doonta haddii halkan ku ahayd ruux wanaagsan oo cibaadaysta oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku xidhan oo wuxuu la farayna qaatay wixii laga reebayna ka tagay saaxibul masaajid saaxibu salaada saaxibu zakada saaxibu salaad muxuu siyaama wala la yaal waxa weeyaan aakhiro waxa kugu horeeya marka maxay hayeen soo dhaweyn wanaagsan ilaahay baa lagu horgeenayaa adigoo lagu soo galbinayo oo hareerahaaga iyo xaggaaga dambe iyo xaggaaga horeba la soconayo baa ilaahay subxaanahu wa ta'ala lagu geynaya qiimo intee lag ayay ku muujinaysaa wala la yaal ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu yiri isagoo la hadlaya addoomihiisa wanaagsan wasaari'u ila maghfiratin min rabbikum udegdega ilaahay dambi dhaafkiisa udegdega iyo wa jannatin 'arduha as-samaawaati wal ard waxa kale aad udegdegtaan janno balciidu leeyahay samaawaadka iyo arlada inta u dhaxaysa haddaad maanta tiraahdo adduunyada soo koobay ma soo koobi kartid ka waran marka lagu yiraahdo jannadana waxay balciidu leeyahay samaawaadka iyo arlada dhexdeeda hadii lagu yiraahdo ma qiyaasi kartid walaalayaal ilaahay wuxuu leeyahay uciddat lil muttaqiin jannadaas waxa loo diyaariyay oo loogu talagalay kuwa ilaahay ka baqa subxaanahu wa ta'ala walaalayaal ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu yiri wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila aljannati zumara dadka wanaagsan wala soo kaxaynaya rabbilahi subxaanahu wa ta'ala kuwa alla ka baqi jiray adduunyada markay joogeen waxa loo soo kaxaynaya xagga jannada loo soo kaxaynaya loo soo galbinaya iyagoo waliba kooxa ah iyagoo zumar ah oo kooxa ah baa jannada xaggeeda loo soo galbinaya jannadaasna waa jannaat عدن مفتحة لهم الأبواب والله قد يارنا يا والله غفريا الباب بدو ويكفريه الباب بدو ويكفريه ولا ليال تاسنا waxay u baahan tahay halkan waxaan kala tagnay weeyaan waxaan bartan ka sii shaqaysano imma jannayna geyn doonaan imma naar bayna geyn doonaan haddana maca dalika waa la inoo sheegay wixii naartayna gelinaya waa la inoo sheegay wixii jannadayna geynayana waa la inoo sheegay walaalayaal Utba ibn Ghazwan waxa uu leeyahay wala yatiyanna alayhi yawmun wa huwa kadhidun min az-ziham
jannada aad arkayso ee albaabadeedii ay furan yihiin ee lagu diyaariyey waxa weeyaan dadku waxay geli doonaan iyagoo waxay iman doonaan iyagoo cidhiidhi u geli doona macnaha badnaanshiyaha dadka jannada geli doona ayuu tilmaamayaa walaalayaal nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay jannada waa maa laa ra'at caynun walaa samicat udunun walaa khadara calaa qalbi bashar jannada wax qalbigaa ku soo dhici kara maaha nimcada iyo barwaaqada iyo qaabkay tahay iyo sidaa ay tahay wax indha arkeen ma aha ay ka warbixin karaan wax dhagi maqashayna ma aha wax qalbi bini aadan ku soo dhacayna ma aha dadka adduunyada jooga ee cibaadaysan jiray oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu faray qaatay wuxuu ka reebana ka hadhay abaalkooda weeyaan walaalayaal dadka marka ay jannada yimaadaan irideeda waxay u kala geli doonaan iyaga laftooda kala kooxa ah bal iyaga laftooda kala fadli badan nabigu wuxuu yidhi inna awwala zumratin yadkhuluuna aljannata calaa suurati alqamar leylata albadr kooxda ugu horaysa ee jannada geli doonta suurada ay ku gelayaan waxaad moodaa iftiinka ka baxaya dayax 14aad ilaa 15aad aad moodo kooxdaas ugu horaysa walaalayaal jannada geli doonta nabigu wuxuu ka warramay kooxda labaad ee ku xigta thumma alladhiina yalunahum ala ashaddi kawkabi durriy fi as-samaa idaa kooxda labaad ee jannada geli doontaana xidigaha dayaxa ugu iftiinka badan suuradaasoo kale leeyihiin saas bayna yihiin walaalayaal jannada mar haddii la galo nabigu wuxuu yidhi laa yabuuluuna walaa yatagawwaduuna walaa yatfiluun walaa yamtakhiduun amshaaduhum aldahab warashxuhum almisk jannadu walaalayaal suuli ma leh wax allaala waxaad cuntaa kaadi iyo saxaro noqon mayso ma jirto ma kaajaysa wax kaadi la yahdaa ma jirto maanta cabitaanka ugu wanaagsan ama ugu qaalisan haddaad ka soo dharagto goordhow biyaad waxaa tahay kii biyo sitay godka gelaya iyadoo nooc kale ah iyadoo midab kale ah iyadoo ur kale ah adoo iska ilaalinaya weliba aad isaga haddana iska maydhaya weliba noocaas isu beddelaysa amaa jannada laguma kaajo iyada wax kaadi ah wax allaala waxaad ka cunaysaa waa wax wanaagsan kaadi ku qaban mayso nabigu wuxuu walaa yatagawwaduun saxara ma jirto cuntada maanta adduunyada ugu qiimaha badan ugu qaalisan haddaad cunto goordhow wax adiga laftaadu aad la bilaadan kale iska daa wax adigu aad la yaabi doontay noqonaysa bal adaaba ka qaylinaya ad baad isaga maydhaysaa ad baad isaga ururinaysaa god baad la doonanaysa amaa jannada wax allaala waxaad cuntaa wax saxara isu beddelayaan ma jirto malaha haakana malah candhuuf ma leh xagsan maysid oo candhuufan maysid oo xaakan ma leh oo waxaad ka tufaysaa midna ma leh dhididkaagu wuxuu urayaa miski shayga ugu udgoon buu noqonayaa haddaad maanta soo yar shaqayso oo aad soo dhidido waxaa tahay goordhow kii inuu maydho raadiyaa waa qubaysanayaa waa yar dhididay waan meedhanayaa male isagu dhididkaagu waa miski walaalayaal ibnu aadamka bartan jooga ee cibaadaysanaya ee safka hore taagan ee dikriyaya qalbigiisa ka dhigay qalbi shaakir ah carabkiisa ka dhigay lisaan daakir ah ee bartan jooga walaalayaal nimcada u dambaysa uu sugayo wey nimcada uu sugayo daar muqiim ah ayuu sugayaa walaalayaal bedelkiisa iyo abaalkiisuna waa kaas bedelkiisa iyo abaalkiisu kaa walaalayaal weeyaan
ولا ليال قفك الدنيا مركو تشوغي سي عباديستي سي فيعن oo ilaahay ka aqbalay subhanahu wa ta'ala waxyaabaha jannada lagu abaal marinayo waxa kamid ah waxa la siinayaa ninkiiba waxa la siinayaa laba xaas baa la siinayaa laba xaas ayaa la siinayaa ay guursanaya dumarka wanaagsan ee ahlu jannaadka ahi kuwa la guursanayo weeyaan lagu abaal marinayo haweeneydii wanaagsaneed adduunyada markay joogtay wanaagsaneed ilaahayda ku xidhnayd markay jannada ay gasho waxa dhici karta ifka in nin dhiba ayba kula noolayd jannada markay gashana waxa weey nin wanaagsan baa loo guurinaya nin wanaagsan ahlu jannad aba la siinaya kadalika raggu marka nin kasta waxa lagu abaal marinaya laba xaas ayuu helaya anna likulli wahidin minhum zawjayn mid walba wuxuu helaya laba xaas ayuu helaya نبي عليه الصلاة والسلام وحط المان كبحي حتى هوينك جنة لغو أبال مرينيو قروح انت كقبان نبي قواشك عليه الصلاة والسلام وحيولي يرى مخ ساقها من وراء لحمها من الحسن قبلنا لغو السينيو قروح انت كقبته كوب كده ودكتها هي روحه laf baa ka sokaysa dhicana ka sokeeya hilib baa ka sokeeya maqaar baa ka sokeeya gabadha kubkeeda dhuuxa ku jira badan ka arkaysa toosu daawanaysa indhaha maanta ma aha indhahan ma quruxda lagu tusaya quruxdan ma asal lagu abal marinaya maxaa layna ka doonayaa maadaama in maxaas inoo dambayso war meeshan waa laga guuraya waa daarul amal وكجورنا كبالقات بينكنا كبالقات هيركو مركو سفر دير كجرو جيد دير مركو قالو ميلا شرتا ما تدا يا عرورت يا الدنيا ده بلغوسي نسيو كبالقات باليد هذا الدنيا كبالقات بينكنا ميلا هذا عالم البرزخ نينا ولا سيتها ومشى قيامه كبل وضبع دار الأبد بالله بلا تجدونه ولا ليال وحن شغنا ومالمه مالمها عمل ولا سنة يشتغيسنو نمعوين كالينو دياريينا إيجانا أينو ترتنو قلو ديار قرونا نبي قوحيلي أهل الجنات كو جنات دا مركي قالان لا اختلاف بينهم ولا تباغض مركي سوي معدان يا شكيسان أيان إيا سوقيا جنات دح فرديان وحي مرمية يا وحس خلافية يا وحس علادينية يا بلد وحي قصة ميسي بلد وحنا قصة ميسين ماله ماشا خلاف الدنيا لقيتك وحرير صبح سنية وح شخصي صبح سنية الدنيا لقيتك أهل الجناتك جنات قلا لابتود ويسوح عارنته نبي وحيري إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار dadka marka la soo dareeriyo waa maqashan jidka siraad baa la maraa waa wada aad u yar naartay saa u kala badanta dadka waxa la oranayaa wadada mara haadaanta ka hooseysana waa naartii weeyaan wax allaala wixii ahlu naar ah barta markay marayaan bay ka daadanayaan ka qubanayaan waxa gudbaya intii ahlu jannada ahayd baa gudbaysa qolaba si gudubtay isku si ma wada gudbayaan qaar baa hilaac ku dhaafaya adu ala kulli xaal ahlu jannaadku markay gudbaan oo jidkaas siraad ay dhaafaan ogow waxay marayaan naarta iyo jannada dhexdeeda marka joogan oo la hoojinaya marka waa la hoojinaya meesha ay taagan yihiin waa jannada iyo naarta dhexdeeda waxa laga siibayaa wax allaala waxay halkaas isugu hayeen badana in is haysa oo saa ku dhimata laba iyagoo is haya baa mid dhimanaya kii damana waqti dambe isna dhimanaya wax allaala wixii is haysan jiray adduunyada markay joogeen
ama wax isu qabay halkaas lagu kilin gareynaya oo lagu nadiifinaya marka la nadiifiyo baa loo gudbinaya marka jannadii iyagoo isjecel oo ismucaalaqaynaya jannada galayaan markaas nabigu yiri la ikhtilaafa baynahum wala tabaghud jannada dhexdeeda wax is haysta iyo wax isu caroonaya iyo wax isu daba jeedinaya midna ma jiro halkaas la iska raaxaysanaya raaxa waa taa ninka Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu sulan siiyo nabigu markana wuxuu yiri qulubuhum ala qalbi rajulin waahid dadka faraha badan le jannada ku jira qulubtoodu waxay la mid tahay hal qof qalbigii bay la mid gabigeedu isku hal qalbigeed madaabi si la isugu xaaran yahay la isu jecel yahay la isugu faraxsan yahay waka maxay qabanayaan waxa lagu ilhaaminayaa yusabbihuna allaha bukratan wa ashiya gelin hore iyo gelin dambe waa un tasbiixsanayaan tasbiixun baa lagu ilhaaminayaa tasbiix waxaa leeyahay adduunyada markaa joogteen alla maxaa hawl soo marteen maxaa soo rafaadeen maxaa soo dadaasheen hadda nasna la leeyahay taa bacda raaxa hadda iska faakahaysta hadda walaalayaal maadaama taa aynu sugayso miyaanaysan ahayn inaynu dadaal aad u badan aynu samayno war meesha ama qofku naarta ku jiraya ama uu jannadiisa ku jiraya waa halkaasune inaynu taa u dadaalno ayaa muhiima ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi addoommadaydu jannada markay dhex taxtaxaashinayaan oo ay dhex laafiyoonayaan laa yarawna fiiha shamsan walaa zamhariira jawiga ay ku jiraan baa laga warbixinayaa jawiga ay ku jirayaan kul ma arkayaan baa rabbi yidhi subxaanahu wa tacaala wax qoraxa iyo wax cadceed oo kullo gubta ma arkayaan qabow daran oo guban oo ay ka yaacaan oo dhibana kaana ma arkayaan innaga xaaladeennu waa xilli koodharka la keenaa jira koodharka lagu yaaco xilli la iska dhigo labada xilli inagu dhaxayna xilli aynu kul ku jirno xilli aynu qabow ku jirno jannadu labada midnaba ma leh jawi caadi ah aad macaansanaysa adigu mar walbana adaa lagu raali gelinaya sidaad ilaahay u raali gelisay adduunyada markaad joogtay oo wixii ilaahay ku faray aad u qaadatay aakhirana jannadana adaa lagu raali gelinaya walaalayaal إلهي سبحانه وتعالى وحده فيه ما فاكهة ونخل ورمان وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة خضروات نوعي تهيبا ملها النوع على النوعي تهي خضار النوعي تهي خضروات النوعي فواكه النوعي تهي وحو البوكوية لان وحكا قوائي ماله حل ملها وحلا قودي دي ماها وحكا دمانا ينماها إنما ماله دائم بيكويهين ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى وحيره يحلون فيها من أساور من ذهب واللؤلؤ واللباسهم فيها حرير دركودا إيا وحي كحرقان دونان بإلهيك والرمان ذهب كي أدوية اللي قد دنيا ذهب كرق الله ما أقلا ضمركم بالله أقلية ذهب كي حتى أدوية اللي قد دنا ما أنت ولا أقلية درك حريرة أدوية ولا قد دنا هذا رقتها هاي ما أنت حريرتنا ولا أقلية هاي ولا أقول لبسها ولا أقول حرية ما أنت ولا العذاب لقوا شقينية إلهي وحري يطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وحد أحد وافية أو كو أذيقية أو كو شقينية ويلال شاسو لؤلؤ أدموده كتيرا قلكيس وقروح بدن أي ما أنت أذيق كو أذيقية ما أنت أنين لو شقينيات هذا لقوا شقينية ما أنتاس هذا ما أنت لقوا أذيقية waxa lagu leeyahay kaliya adduunyada aad maalmaha yar joogto soo shaqayso ma doonaysaa inaad nimcada dhex dabaalato ma doonaysaa maanta lagu shaqeeyo adiga barwaaqada inaad ku noolaato adduunyada inta yar joogto soo xamaalo lagu leeyahay walaalayaal nabiga calayhi salaatu wassalaam wuxuu yiri inna ahla aljannati yataraa'awna ahla alghuraf min fawqihim kama yataraa'awna alkawkab ad-durri al-ghabir fi al-ufuq min al-mashriq aw al-maghrib لتفاضل بينهم غريها لا دغيا نبي كور غريها waa la kala sareeyaa dad baa guryahooda aan dhaweyn waa dabaqaad kala sareeya hadana waad arkaysaa waxa dhaxmaraya dadkuna hadana ad qaar ba waxay degan yihiin wax digaa ku dhow
markaas asxaabtii baa yaaba waxay yiraahdeen de guryaha dhaadheer aad leedahay waxa weeyaan waa sina maxamed sheegtay de dhulka kuwa waxa degaya unda ambiyadu baa degaya markaas nabigu ku yiri bala walladhi nafsi biyadihi rijalun amanu billahi wa saddaqu al-mursalin mada guryaha dad baa degi doona idinko kala alla rumeeyay rususha rumeeyay sida loo kala fadliga badan yahay oo halkan amalka lagu kala horeeyo waxa laga yaabaa mid baa jimcada imanaya soo jimcada lama oranin ninka ugu soo horeeyo saacada ugu soo horeeyo waa nin geel iyo lo iyo digaagad iyo beed soo la jaranjaro kala sareysan ma nin baa saaka saacada hore fariistay qaarna waxa laga yaabaa haddaba inay soo galeen isku fadliba fiirso sidaas jannadana lagu kala horeynaya marka nabigu wuxuu yiri may waa la kala fadli badan maalinta iyada wala layal nabiga alayhi salatu wasalaam wuxuu yiri inna lil mu'mini fil jannati la khaymatun min lulu طولها في السماء 60 ميلا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا قفك مؤمن كأه وحيابها لقوم معسوميه إيه لقو سو دوينيا وحكمده جنada waxa laga siinaya meel taandha guri taandha dhererkiisa samada hadii la eego guriga taandhada ahi 60 miil way 60 mayl weeyaan waxa ku dheer xaasaskiiba ugu jira nabiga kaleey salaatu wasalaam waad marba heer buu tagaya xaaskiisa isma arkayaan hadana waa raali gelin qofka loo sameeynayo walaalayaal hal xadiis baan ku soo gabagabeynaa walaalayaal ahlu jannaadka markay nimcada dabaashaan xaq walbana ay ka keenaan oo ay nafisaan oo ay markay sheekaysanayaan adduunyadii markaanu joognay allah maxaan soo salaadnay maxaan tahajjud tukanay maxaan salaatul leyl tukanay maxaan sadaqa sidaan niri maxaan masaajid dhisnay maxaan khayraadka u shaqaynay waa la sheekaysanayaan wixii la qaban jiray wanaagsanaaba laga bay ka sheekaysanayaan laba kala ma hayaan ilaahay baa la hadlayo subhanahu wa ta'ala wa hadiiska ugu dambeeyay darsigeena nabigu wuxuu yiri inna allaha tabaaraka wa ta'ala ilaahay subhanahu wa ta'ala yaqulu wuxuu ku oranaya dadka jannaadka waa busharaan kala gool ahayn ilaahay baa ku oranaya ya ahlal janna wardadkiinan jannada lagu abaal mariyo dadkiinan jannada ku jiro markaasay oranayaan dadka jannaadka iyagoo faraxsan labbayka rabbana wa sa'dayk wal khayru fi yadayk tasahyan ku ajiibno ku maqalna ila waxa weeyaan waxaanay filanan bay heleene markaas rabbi ku oranaya hal raditum raali ma noqoteen maadaama jannadii idin keenay oo aan barwaqada idin geliyay raali ma tihiin oo ma ku qanacsan tihiin markaasay oranayaan ma lana la narda waqad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min khalqik ya rabbi sidee baanan raali u ahayn waxaad nasiisay hortaya waxaanad cidna siin bad nasiisay raallahu nabiyi markaas rabbi ku oranaya ala u'diikum afdala min dhalik ma idin siiya waxa aan idin siiyay wax ka sii fadli badan hadan siiya ka warama markaas ay oranayaan ya rabbi wa ayu shay'in afdal min dhalik oo rabbi nimcadana tiisa maxaa ka fadli badan jannada galiis anaga naloo shaqeynaya geedka ugu dheer hadan midisa jeclaano oo qalbiga ku soo dhaco laantii ordaysa anaga noo imanaysa kasan goosanayna bila rafaad kasan rabbi ku oranaya subhanahu wa ta'ala uhillu alaykum ridwani wa halidajiyay oo idin xalaaliye raali aanshahayg baan idin siiyay fala askhadu ba'dahu abada dibna idinku caroon maayo dibna raali aanshahayg baan idin siiyay dibna idinku caroon maayo inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluna 'ala an-nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأقم الصلاة